gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Cali Jeyti Cismaan Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalowshe oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan isla markaana weheliyaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan saraakiil ciidan oo ka mid yahay taliye xigeenka booliska gobolka Banaadir Korneyl Cali Dhuux Cabdi Mahadalle iyo siyaasiyiin oo ka mid yahay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax iyo saraakiil kale ayaa gaaray qaar ka mid ah furmaha hore ee deegaanada gobolka Hiiraan ay ka socdaan dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ayaa boqolaal ka tirsan ciidamada deegaanka kula hadlay furmaha hore ee deegaanada ay ka socdaan dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab gaar ahaan ciidamada ku sugan aagga hore ee deegaanka iyo Soomani hoosaga degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan nabadoon cilmi Maxamed Barre nabadoon Faarax Raage iyo nabadoon Cabdi Xalan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ciidamada deegaanka ku buuriyeen si laban dagaalka gobolka Hiiraan looga sifeynayo haraadiga argagixisada Al-Shabaab ballan qaadana ka dhaqan ahaan inay garab taagan yihiin ciidamada deegaanka dagaalka kula jira argagixisada Al-Shabaab dagaal aan hadda ku baaqayno ma aha waa dagaal aan hore u galnay waan ku jirnaa mana ka baxayno inta gobolka Hiiraan ay taaka uga jiraan waxaad u safantiin waa col waxaad u safantiin waa ciiro waxaad u safantiin waa dad iska celin qayrkiin adinka qayrkiin yowna idinku tagrifalin anigu waxaan ahay nabadoonkii ugu horreeyay dagaal cilaamiye walaalkii wuxuu yidhi nabadoon dagaal ma cilaamiyo anoo tuuto gashanoo nabadoona dagaal cilaamiyey dagaalkii aan la cilaaminayn kanoo kaleeta ma aha kan waa kii la cilaaminay anoo kaligay nabadoona ku jiray difaaci waxa mahad ballaaran iskale walaalaha nabadoonnada kaleeto ma aragtay dagaalkii dhinacooda uga soo qayb galay waxaa kale mahad kaleeto iskale walaalaha gurmadka iyo gaashaanka laga kala helay ma aragtay si toos halkan u yimi hadday tahay 22aad hadday tahay danab hadday tahay ma aragtay kilinka shanaad hadday tahay ma aragtay dhinacyada kala duwan lama soo koobi karo dadka walaala ah ee garabka laga helay ayaa mahad ballaaran oo la tiri karin 1 iyo 2 iyo 3 aan la dhihi karin boqolkiiba boqol aan u mahad celinaynaa Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalowshe oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada deegaanka uga mahad celiyay halganka ay ku jiraan dowladda federaalkana uga mahad celiyay garab istaaga ay u muujiyeen dadka deegaanka waxaana uu sheegay Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Cali Sanbalowshe in Hiiraan ay tahay xudunta halganka dib u xuraynta Soomaaliya ninka haday balaay qabsato culays qabsado xanuun qabsado shid qabsato ku samra oo ku qancana Ilaahay waa u bishaaray war waxaan horta waa wax dhib badan ku samra nimca Ilaahay idin siiyo Soomaaliyo ina ida fiirinayso salliga u noqonaysaane taariikhda ida qori doontay ayadaasna ku mahadiya dad fara badan oo shabaab galay oo ka adkaa waayay oo iska dhici waayay oo wajihi waayay Soomaab in la iska dhicin kara aablaawdeen horta guuleysta xaqaad haysiin Ilaahay dartii waa guuleysan doontaa ninka xaq gacanta ku hayna Ilaahay guusha waa siiya nimankaas shabaab la yiraahdaa hal magac ay leeyihiin inteenan iyo inta kale Soomaaliya shabaab la dirsan hal magac ina yeelana ma rabnaa mase kun magac ina yeelana meeshan Soomaaliya rabnaa in isku keen wiil kasta oo Soomaaliyada meeshan imaanaya waa walaalkiina horta labada gacmood ku soo dhaweysta waxaan maqlaayay dad fara badan oo dockayeera oo eedeynaya dawladda oo eedeynaya xoogga dalka Soomaaliyeed maalin dhaweey dagaal ka dhintay meeqa wiil oo military oo tuuto wato Soomaalida ku dhimatay Ilaahay baa idinku dhaaritay maalintaad soo bilowdeen iyo maanta wax xagara ma xoogga dalka Soomaaliyeed ka daranteen annaga dawladda Soomaaliyeed waa noo hiilisay ma hada ka gaarto oo madaxweynuhu kow ka yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa noo hiiliyay wax ay 3 operation oo waaweyn ayadoo meesha aragtay dagaal ka socdo ciidanka xoogga meeshan la isku keenay maxaa kale noo sameey lahaa dagaalkana annagoona kala tashanaan bilaawna annaga gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa ciidamada deegaanka uga mahad celiyay halganka adag ay ku jiraan waxaan u ballan qaaday gudoomiyaha Cali Jeyti Cismaan in adduun lacageed oo siin doono qofka si ay soo dilaa qof ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ballan qaadayna in ka gudoomiyahan ay ka go'an tahay dagaalka gobolka Hiiraan looga sifeynayo haraadiga argagixisada Al-Shabaab dawladda ma lagu kicinayay adinkoo woona dhihi kara dhulkiinina jooga waxaanoo beeka amana wata war intiina hadii qof shabaab dilo shabaab oo dhamaana ma gudino nin walba nin shabaab inuu dilaan raba nin ka badan leedin kama rabo nin kasta inuu shabaab soo dilo 20 anay ugu qof goostana la waa shabaab oo maleeshiyada qofkii soo dila hadda ma lees maqlaado yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xiniyiisa soo laalaadina keena $5,000
أمير قفكي سودي كوا أمير ما هو توجي أمير المؤمنين وعلى هذا ضدك أصحابها وفعنا كوا لكن هو كيسين يان نيكي سودي له $10,000 على الليل يو كوا لما ذا نيكي سودي له أنا شن يلا تنكوا يا شقي سكرة وأبالنا أنا قلنا إرجع كرة أبالنا يعني إرجع كرة أغريس أنا بيرو فركرة جيران كرة كسبع كرة خالد حما إسماعيل كعسى قربه أنت قرنك دقمة محاس